Ballon d'Or 2025 Mourinho ayaa magacaabay 4 ciyaaryahan oo ku guuleysan kara abaalmarintan. Tababaraha Fenerbahce Jose Mourinho ayaa sheegay in mid ka mid ah xidigaha ay isku dalka yihiin ee ka ciyaara Paris Saint-Germain uu u qalmo inuu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d'Or sanadkan. Wareysi uu siiyay Canal 11 Mourinho ayaa ciyaartooyda ku magacaabay Vitinha, Cancelo, Ramos, Joao Neves iyo Nuno Mendes. Sida laga soo xigtay isaga, PSG waxay ahayd kooxdii ugu fiicneed xil ciyaareedkii hore, iyagoo ku guuleystay Ligue 1, Copa de France iyo Champions League. Waxaan u maleynayaa in kooxda PSG ay tahay kooxdii ugu fiicneed xil ciyaareedkan iyo ciyaartooyda Boortaqiiska ah. Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, Cancelo, Ramos ayaa ciyaaray kulan kasta. Waxaan jeclaan lahaa in midkood uu ku guuleysto Ballon d'Or sida iska cad, ayuu yiri. Dhinaca kale, Liverpool oo heshiis u soo bandhigtay mid ka mid ah xidigaha kooxdeeda ugu muhiimsan. Maamulka Liverpool ayaa doonaya in heshiis cusub ka saxiixdaan xidiga daafaca uga ciyaara ee Ibrahim Konate. Mustaqbalka Ibrahim Konate ee Liverpool ayuu shaki weyn ku jiraa mustaqbalkiisa isagoo oo xiiso ka helaya kooxda Real Madrid. Joogitaanka Ibrahim Konate ee Liverpool ayaa muhiimad gaar ah u leh tababare Slot, kaas oo si weyn ugu tiirsan isaga iyo Van Dijk oo ka ciyaara daafaca dhexe. Sida lagu sheegay warbixin ay daabacday French Football, Liverpool ayaa u gudbisay Konate dalab cusub oo ay ku dooneyso inay heshiis cusub uga saxiixato xidiga. Wargeyska Faransiiska L'Equipe ayaa arrintan ku xusay in maamulka Liverpool ay ka go'an tahay inay qandaraaska cusbooneysiiyaan Konate oo aysan u ogolaan inuu bilaash ku baxo dhammaadka xil ciyaareedka cusub. Ibrahim Konate waa 26 jir, waxa uu kooxda Liverpool kula jiraa heshiis dhacaya ilaa xagaaga 2026. U ciyaaristii Rashford ee kulankiisii ugu horeeyay ee Barcelona oo dib u dhacay. Barcelona ayaa ku dhawaaqday inay kansashay kulankeedii saaxiibtinimo ee furitaanka isku diyaarinta xil ciyaareedka cusub, taasoo dib u dhigtay fursad uu Marcus Rashford uu u safan lahaa kulankiisii ugu horeeyay. Xidigii hore ee Manchester United ee Rashford oo 27 jir ah ayaa ama hal xil ciyaareed ah ugu biiray Barca, isagoo kaga soo biiray Manchester United. Kooxda haysata horyaalka La Liga ayaa fursad u heli doonta inay si joogto ah ula wareegto xagaaga soo aadan. Xidiga Rashford ayaa waxa uu diiradda saarayaa sidii uu si joogto ah uga ciyaari lahaa kooxda Barcelona. Axadda Barcelona ayaa ku wajahneyd kooxda reer Japan ee Fiscal Cup kulan saaxiibtinimo, waana kulankoodii ugu horeeyay ee xagaaga, laakiin kulankaas ma dhici doono kadib markii Barca ay soo saartay bayaan ay ku sheegtay inuu jiro jebin weyn oo dhinaca heshiiska ah. Waa hagaag saaxiibayaal, waa naga intaa tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.